guud ahaan duulimaadyadii kala duwanaa ee diyaaradihii ka duulaya ama ku soo degaya ee waddankaasi Giriiga ayaa lagu soo waramayaa in la hakiyay. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo wajaheen hay'adda ku shaqada leh hagidda iyo isku dabaridka duulimaadyada kala duwan ee dalkaasi ka duula iyo kuwa ku soo degtaba cillado farsamo oo soo wajahay iyo in ay raadaaradooda u shaqay waayeen sidii loo baahnaa. Nidaam muhiim u ah xakamaynta hawada iyo sidoo kale taraafikada diyaaradaha magaalada Athens iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ayaa waxaa galay khalkhal aad u xooggan, taa oo sababtay in guud ahaan la hakiyo duulimaadyadii ka duuli jiray iyo kuwii u soo duuli jiray waddankaasi, taa oo ay hay'adani ku sheegeen in ay fursad u siiyaan diyaaradaha markaa ku jiray hawada waddankaasi Giriiga in ay si nabdoon cagaha dhulka u soo dhigaan oo aysan diyaarado kale hawada soo gelin maadaama aysan xakamay karin. Xarunta xakamaynta taraafikada hawada waddankaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay cillado kala duwan oo aad u baahsan ay ku timid, taa oo aan la garanayn cidda kharribtay oo aysan ilaa iyo hadda maamulka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dalkaasi aysan faahfaahin ka bixin. Dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo kuwii isaga kala gooshayay gobollada kala duwan ee dalka Giriiga iyo caasimadooda Athens ayaa la hakiyay maadaama aysan awoodin in ay hagaan duulimaadyada kala duwan ee dul maraya, kuwa soo degaya, kuwa ka duulaya iyo sidoo kale kuwa doonaya inay isticmaalaan hawadooda. Waxayna arrintani la yaab iyo fajiciso ku noqotay dad badan maadaama ay mar kaliya waddanka uu galay xaalad aan duulimaad lahayn, waxayna arrintani ka dhacday garoomo kala duwan oo qaaradda Yurub ku yaala kuwa oo ay soo wajaheen cillado farsamo iyo hakaris kala duwan oo sistemyadooda inta galo kharribo, kuwa oo khalkhal amni iyo duulimaad ee garoomada kala duwan ee Yurub ku abuurayay. Ha yeeshee waxa uu Giriigu markaan dheer yahay dalkiisa oo idil in uu ka joojiyay duulimaadyadii ka bixi lahaa iyo kuwii soo geli lahaa si guud ahaaneed inta uu ka xakameynayo awoodiisii hagidda iyo howlihii hawadana uu ka soo ceshanayo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.